badanaa inta nebi qoomkiisii loo diray ay qoomkiisii dileen. nebiyadaas oo qoomamkooda ugu baaqayay in ay ilaahay aaminaan si ay janno u helaan ay ku waarayaan, ugana badbaadiyaan cadaabkeedu daran yahay. ku soo dhowaada muuqaalkeennan cusub. waxaan maanta ku falanqayn doonnaa nebi loo dilay gabadh dumara oo ahayd mid jidhkeeda ka ganacsata awgeed. laakiinse intaanaan bilaabin muuqaalka ka hor, ha naga ilaawina taageeradiinna, subscribe, like. waxay noo tahay dhiirigelin si aan horay ugu sii soconno oo muuqaaladan la mid ah oo tiro badan idinku soo gudbinno. aan bilaabanno. waxaa laga wariyey nebiga sallallahu calayhi wasallam habeenkii uu allah subxaanahu jalla fi culaa dheelmiyey ee israa, waxa uu la kulmay nebi zakariya calayhi assalaam. uu salaamay, kadibna waxa uu weydiiyey, zakariyow, waxaad iiga sheekaysaa maxay kuu dileen reer bani israa'iil? wuxuu dhahay, muxamedow, yaxya wuxuu ahaa ninka ugu khayrka badan jiilkiisii, waxa uuna ahaa ninka ugu wejiga quruxda badan ee uguna kartida badan. wuxuuna ahaa siduu alla dhahay, kaana xasuuraa, mid aanan dumarka u hamoonin. gabadh ka mida reer bani israa'iil ayaa u hamootay oo jeclaatay, deedna way u soo bandhigtay, waa uuna ka diiday. rag ayay u dirtay si ay u soo qaadaan. meeshana waxaa joogi jiray boqorkaasoo ay dadku la kulmi jireen mararka qaarkood oo ku dhihi jiray, waxaad doontaan iga codsada. gabadhii baa boqorka u timaaday. wuxuu ku dhahay, waxaad doonta iga codso maanta waan kuu samaynayaaye. waxay ku tidhi, waxaan rabaa inaad yaxye ii disho. markaasuu ku dhahay, wax kale ii weydiiso. markaasay tidhi, wax kale uma baahni anuu. wuxuu ku dhahay, waa laguu samaynayaa. rag baa loo diray, nebi yaxye iyo nebi zakariya. zakariya wuxuu dhahay, isagoo aniga aan isku ag tukanayno ayay u yimaadeen oo madaxay ka jareen, madaxiisiina waxay u geeyeen naagtii. wuxuu dhahay buu dhahay nebigu sallallahu calayhi wasallam, maxaa kaa samir badnaa zakariyo? wuxuu dhahay, muxamedow, salaadaydii wallaahi inaanan ka bixine markii madaxii loo geeyey iyo dhiiggiisii ee habeenkii gabalkii madoobaaday, dhulka ayuu ilaahay la wada jaray, boqorkii iyo intii ku xeernaydba. deedna reer bani israa'iil ayaa dhahay, nebi zakariye ilaahiisii wuu u xanaaqo, waa kaa u aargudee, innaguna boqorkeenna waa inaynu u aargudnaa oo zakariye aynu soo dilnaa. wuxuu dhahay zakariya, warkii ayaa isoo gaadhay. markii uu warkii isoo gaadhayna waan ka soo baxsaday. markaan soo baxsaday meel cidla a marayo isdhahay, waa laguu soo dhowaaday. geed ayaa ii dhawaaqay oo igu dhahay, kaalay, ilaahay baa geedkii ii kala furay. geedkii baan kala dhex galay. ibliis oo meesha joogay ayaa waxa uu arkay alaab iga dhacday. geedkii markaan galay ee reer bani israa'iil la yimaadeen ayuu dhahay, war maydaan arkaynin? waa kan alaabtan isagii ka dhacday, geedkaasuuna ku galay sixirkiisii. reer bani israa'iil waxay dhaheen, aan gubno geedkan. markaasuu dhahay, may ha gubina ee gudun la dhaca. miishaartii ama guduntii bay la dhaceen geedkii. nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa weydiiyey, maadan xanuun dareemin? markaasuu dhahay, may ee ilaahay baa geedka ruuxdeeda geliyey. geedkii baa xanuunka dareemay, anigu maanan dareemin. culamaa'u taariikh waxay dhaheen, nebi yaxya calayhi salaam markii la dilay kadib waa la soo qaadoo dhallinyartuu waxbari jiray ayaa soo qaatoo waxay u keeneen nebi ciise calayhi salaam oo meeshiisii uu ku tukan jiray jooga. markay u keeneen ay uga sheekeeyeen qisadii iyo sida loo dilayna aad ayuu uga murugooday. meesha laakiin lagu aasay nebi yaxya calayhi salaam waa lagu wada muransan yahay oo khilaaf badan ayaa ka jira. qaar waxay dhaheen dimashq, qaarna waxay dhaheen beyruut, qaarna waxay dhaheen xalab. qaarba meel ayay sheegeen, laakiinse allah subxaanahu jalla fi culaa keliyaata ayaa og meesha uu ku aasan yahay. hada wallahu tacaala aclaa wa aclam, wsala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam. walaalahayga qaaliga waa dad ka hesheen muuqaalkan, nagu taageera taageeradiinna, subscribe, like, gambaleedkana furta si ay idiin soo gaadhaan muuqaal kastoo cusub oo aan soo gelinno. intaan kaga kulmayna muuqaalkan oo kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa nabadii ilaahay korkiina ha ahaato.